iyadoo sanadkii tegay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool uu ahaa mid ay wax badan iska bedeleen dhammaan kaabayaasha nolosha, caafimaadka, waxbarashada, dhismayaasha wadooyinka, ganacsiga iyo socodka magaalada, ayaa wuxuu sanadkii dhamaaday uu noqday kii ugu wanaagsanaa 20 sano la soo dhaafay oo soo maray gobolka Sool gaar ahaan dhinaca horumarka. haddaba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood waxay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen waxa ay ku xasuusan doonaan sanadkii tegay ee 2015 iyo isbedeladii ugu waaweynaa ee soo maray gobolka. aad baan ugu mahadcelinayaa Mawlid Haradige gobolku waxa moodaa sanadkan inuu sameeyay horumar weyn. waxa kamid ah number 1 wadooyinka oo ah kaabayaal runtii horumarka ganacsiga xadaarada wax badan kor u qaadi kara oo runtii wadooyin fara badan magaalada laga sameeyay, ganacsigana wax fara badan ka bedelay. qaybo kamid ah ka tirasan ahaan aan anagu maalgelinay oo Terrason Road aan ugu magac daray. waxyaalaha kale ee horumarka magaalada ka socda waxa kamid ah ganacsiga ama hoteelada ku soo kordhaya ama xadaaradaha ama kuwa hurdo ha noqdeen ama kuwa cunto ha noqdeen. magacaygu Cabdullaahi Ciise Axmed, waxaan soo dhaweynaynaa sanadka cusub oo hadda inagu soo foole sanadkan hadda dhamaaday 2015 oo hadda isagu caaw maanta ugu dambayso sanadkan maanta dhamaanaya kullu caam waantu bixayr horta baan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta oo meel walba ay joogtana salaam baan u dirayaa gaar ahaan asxaabta iyo family-ga iyo inta muuqayga. waxyaabaha aad ba looga dareemayaa sanadka haday horumarka xagga tahay wadooyinka infrastructure-ka iyo haday tahay xagga iskuulaadka haday tahay xagga waxbarashada. waxa kale runtii magaalada ku soo biiray xagga waxbarashada jaamacado awal san ogeyn waxa hore u jiray Nugaal University, hadda waxa shaqeeya laba jaamacadood oo kale runtii